wasaaradda maaliyaddu waa hay-adda ugu muhiimsan baa la dhihi karaa qaranka halbowlaha hay-adaha dalka waa meeshii runtii dalkaani uu martida ugu ahaa dakhli aruurinta iyo kharash bixinta intaba dalka iyo horumarka dalka ka socda ee ballaaran iyo kuwa insha Allah aan rajaynayna intaba marka runtii culays weyn ayaa wasaaradda ka haystay dhinaca xarunta ay ku shaqaynayso waxaan ku tilmaami karaa dadka wasiirku ugu horeeyo ee ka shaqeeya wasaaraddan dad naftood horeeyaal ah oo runtii halis badan xatal ku soo shaqaynayay dhismaha soo gaboobay oo culays badan ka jiray digniino badan ka soo baxeen oo inuu dadka ku duldumo runtii aan cabsi badan ka qabnay ayaa haddana muddo dheer lagu shaqaynayay oo ay xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray ay ku shaqaynayeen waxaan ku faraxsanahay in wasiirka iyo tiimkiisu ay dadaal dheer runtii ay u galeen hawshaan sidii looga bixi lahaa oo ay wasaaraddu u heli lahayd xarun bad qabta fayadhowrkeedu fiican yahay dadkuna ay ku shaqayn karaan wasaaraddana qaada casri ah si fiican loo qalabeeyey waan uga mahad celinayaa bangiga inaga caawiyey African Development Bank oo runtii mashaariic fara badan dalkan ka wada nooga fuliyey haddana kuwa badan aan ka rajaynayno aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin inay naga caawiyaan hawshaas marka la fiiriyo wasaaradda baaxadda ay leedahay inkastoo meelo kala duwan ay ku shaqayso haddana wasaaraddani waa wasaaradaha ugu weyn wasaaradaha ugu waaweyn wasaaradaheenna waaye marka xaruntu dabcan marka loo fiiriyo saan sheegay baaxadda wasaaraddu ay leedahay way ku yartahay laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inay meelo ka sii waaweyn iyo xarumo ka sii waaweyn insha Allah ay u dhismi doonto wasaaraddan haddii la yiraahdo laakiin hadda waxaan rajaynaynaa dhismahan wuxuu noqon doonaa dhismo looga baxo duruufaha hadda jiray aad ku shaqaysaan aad uga baxdaan ayaan rajaynaynaa insha Allah marka waan idinku hambalyeynaya wasiir shaqadaas wanaagsan dhismaha waan soo arkay waxa yani waa la soo tusay maxaan ku dhahaa naqshadda iyo sida uu ekaanayo iyo inta dabaqa uu ka koobnaanayo iyo xafiisyadu sida ay u ekaanayaan iyo dhulka kale xafiiska ama dhismaha iyo sida maxaan ku dhahaa environmentiga green u yahay sida loogu dadaalay solarka uu ku shaqayn doono oli doonaan dadka maxaan ku dhahaa hadda siday dhibkay ku qabaan oo masalan maxaan ku dhahaa musqulaha iyo meelaha maaragtay masaajidda iyo in dumarka iyo ragga loo kala sooci doono oo ay meelo ay maxaan ku dhahaa dadku kala nifsaan ay heli doonaan haddii la yiraahdo xafiisyaduna xafiisyo qurqurux badan oo ku filan shaqaalaha iyo madaxda dawladdaba ay yihiin ama wasaaradda ay yihiin marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhismaha sida uu egyahay hataa dhismo aad u qurux badan weeye waxaan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay si dhib yar uu inoogu dhameeyo